uga hadalnay heshiiskaas siyaasadeed wuxuu ka dhacay magaalada Baydhabo 2018 kadib markii guddi ka socda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay muddo dheer ka shaqeynayeen shirkii ka horreeyay oo London ka dhacayna communiquegiisii uu ku yaalay in dalka uu aado qof iyo cod 2021 shirkii ku xigay oo aan wada tagnay oo Brussels isna Belgium ka dhacay oo European Unionka kadib markii aan heshiiskii siyaasadeed aan ku gaarnay Baydhabo oo aan tagnay waa bogaadiyeen kadibna waxa xukuumaddu ay diyaarisay sharcigii markay dhamaysana waxay keentay baarlamaanka labada aqal waana ansixisay macnaheedu waxay tahay heshiiskii siyaasadeed waa la soo gaaray waa soo dhamaaday kan waxa weeye heshiiskii siyaasadeed part 2 oo kii hore laga dhigayo waxaan jirin inkastoo sharciga laga sameeyey hore loogu heshiiyey in la meel mariyo oo heshiiskii shalay la galay aan la jabin anigoo haddaba fulinayo golaha shacabka oo ah aasaaska nidaamka dowladnimadeena wax walba waxay leeyihiin golaha shacabka waa hay'adda ugu sarreysa ee matalaadda shacabka Soomaaliyeed oo 15 milyan ah gaartay waxay ku gaartay rabitaanka dadka adeegsasha murtiyeedkii Soomaaliyeed wuxuu dhigay in dalka ay ka dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay waqtigeeda ku qabsooma kaas loo saarayo guddi farsamo oo ka soo baarandega hanaanka doorashada qaabka uu ku dhacayo dhaqangalkiisa implementationkiisa guddigaas oo ka kooban dowlad goboleedyo xubno ka mid ah iyo dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir sidaas darteed waxaa laga maarmaan ah in xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay mar walba wada hadlaan wada hadalku furan yahay oo aan la kala dudin la wada tashado la isqanciyo lala yimaado qorshayaal iyo go'aamo siyaasadeed oo awoodda dib ugu celinaysa shacabka Soomaaliyeed ee adiga matasha taasoo sii xoojinaysa in golahan uu noqdo marjicii arrimaha masiiriga ah ee loogu soo noqonayo mudanayaal iyo marwooyin sidaad la socotaan maanta oo bisha 15 waxaa lagu balansan yahay in la isugu noqdo oo la isugu tago magaalada Muusmareeb si dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay uga arrinsadaan hanaanka doorasho ee dalka lagu hagaajiyo taasoo aan ku rajo weynahay inuu noqdo mid sii horumarinaya geedi socodka dimuqraadiyadeena ee dalka iyo in awoodda loo celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan xildhibaanadooda iyo madaxda ay rabaan inay ku aaminaan hoggaanka dalka madaxweynaha mas'uuliyadiisa ugu horeysa waa ilaaliyaha dastuurka iyo sharciga dalka ku degan waa isagoo weli ka shaqeynaya siyaasadda laakiin mar walbaba aasaas waxa u ah sharciga iyo dastuurka in la ilaaliyo waxaan mar kale idin caddeynaya maadaama aad tihiin codka shacabka oo aad matashaan ummadda Soomaaliyeed ayna tahay inaan baranno golahani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada wuxuu wakiil u yahay shacabka Soomaaliyeed go'aanka gaartaana waa in dalka oo dhan laga aqbalo waa sida ay tahay caddeynayaan inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataan ugu dambeyntii waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagga leh aad ii aqbasheen oo aad ii soo dhaweyseen waa salaamadtihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi